shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana ku raashinka karinayay oo ayaga raashinkoodii iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qoriga la qabsadeen askari waardiye ka ahaa gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qoriga markii ay la qabsadeen gacantoodii ku galay waxay bilaabeen dagaal ay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar haddii gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyey haysteen oo gacantooda galayna laba qori noqotay labadii qori ayay ku dagaalgaleen marka baabku waa sidaas waxa meesha ka dhacay inta ayada wax ka gudubsan ma jiraan hawshan hadda waa degan tahay maxaabiistiina gacanta lagu hayo wixii maanta